Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal sida qaabka qishka ah ee isku aadka ciyaaraha Premier League sanadkan loo soo saaray, kaasoo laga sameeyey qish lagu sii saadaalinayo in bal ay sidani dhici karto. Okay, marka waxaynu eegi doonaa oo la sii saadaaliyey oo ay qish laga bixiyey sidani inay noqon karto. Haddaba bal aan eegno sida ay qishkan looga sameeyey. Waa sidan xilliga 2020 ilaa 2021 liigaas loo ciyaari doono. 1. Man United vs Arsenal. 2. Chelsea vs Southampton. 3. Everton vs Fulham. 4. Leeds United Newcastle. 5. Manchester City vs Crystal Palace. 6. Tottenham vs Aston Villa. 7. West Bromwich Albion vs Burnley. 8. West Ham United vs Liverpool. 9. Wolves vs Leicester City. 10. Brighton vs Sheffield United. taasoo lagu saadaaliyey in ay sanadkan suuragal noqon karto, balse hadaasha laga bixiyey in kale. waxaynu eegi doonaa maalinta Jimcaha ah oo la samayn doono isku aadka Premier League, kaas oo saacadda markay tahay geeska Afrika laga qaban doono Ingiriiska. sababtaasi waxaynu eegi doonaa bal 12 saacadda markay tahay geeska Afrika sidan inay dhici karto suuragalna tahay. waa sababtoo ah in badan ba waxa laga sameyn jiray qishkaas oo waxyaabo qaarkood ay suuragali jireen, walow ay badankooda suuragali jireen, laakiin kooxaha marka loo saadaaliyo la oran jiray way noqotay sidii la oranayay ee lagu saadaalinay. dhinaca kale markaynu eegno tababaraha cusub ee kooxda Barcelona qaban doona hogaanka sanadkan ayaa wuxuu noqday Ronald Koeman, kaas oo awalna ciyaartooy hore u soo ciyaari jiray kooxda Barcelona, haddana ugu dambeyn ahaa macalinka wadanka Holland, kaasoo in badan ciyaaraha ka gaadhay heerar fiican, guulo fiican soo hooyay qaran ahaan, koox ahaan iyo wadankiisa uu joogay intaba guulo badan ka soo hooyay, isagoo ciyaartooy iyo isagoo macalinaba labadaba ahaa mid aad iyo aad heer fiican iyo magac fiican ka gaadhay. kubadaha dahabka ana aad iyo aad u ahaa mid hogaaminaya waqtiyadii uu joogay ciyaartooyga ahaa, haddana tababarayaasha adduunka ugu fiican ah. wax badan buu ka bedeli doonaa kooxda Barcelona marka la isla eego xaqiiqada hadda ay ku sugan tahay oo ah mid aad iyo aad daciif u ah. sababtoo ah waynu daawanayna habeenkii dhaweyd Champions League u dambeysay Bayern Munich la ciyaarisay, taasoo 8-2 gool lagaga badiyay. waa sababta koox weyn 8-2 gool lagaga badiyaa waa ceeb weyn. marka bal insha Allah macalinkaana waxaynu eegi doonaa bal heerka wax kaga bedelo. waa sababta waa macalin soo aasaasi kara, saldhig u yeeli kara ciyaartooyada daada yar ee muhiimka u ah Barcelona awalba ay ku ahayd magaca ku lahaydna kor soo qaadi kara, boosas fiican oo muhiimana keeni kara, ciyaartooy loo baahan yahay mid ilaa 2 ilaa 3 keensan doona meesha. midda kale waxay u yar baahan tahay malaha waa la soran karaa daawadayaal markaad eegtaan in laga bedelo maamulka sare, wax laga bedelo laftiisa. marka waxaynu eegi doonaa bal caawa labada arrimood ayaynu falanqayn doonaa insha Allah. Premier League saadaashiisu isagu waxa weeyaan mid aad iyo aad kulley markasta loo sii saadaaliyo, qish laga sii bixiyo sababaha keena in kooxda ay isku aadaan iyo koox kale oo la isla doonaya ay dhacdo inta badan. marka bal saadaashaana waynu eegi doonaa. Ronald Koeman wuxuu soo wado isna waynu eegi doonaa sanadkan insha Allah, sababtoo ah waa macalin aad iyo aad u mug weyn, ciyaartooy muhiim u ahaa macal Barcelona kasoo ciyaarayay ahaa waqtiyadiisii. haatana bal waxaynu dib u jaleeci doonaa dhammaan sportiga iyo newskiisii kale, kaasoo dhammaan sheegay macalinku inuu soo ceshan doono dhammaan ciyaartooyada muhiimka ah ee ku maqnaa amaahaha uu koob ka yahay ciyaartooygii la yidhaahdo Coutinho oo muhiim ah, ciyaartooy muhiim ah. habeenkii dhaweydna aad arkayseen daqiiqadii yar ciyaarayay 2 gool iyo eber kooxda ka dhaliyay kooxdiisii. daawadayaal tala bixintiinu waa noo muhiim, awoodda iyo iskarabtaagiinu waa noo muhiim. inaad channelka subscribe iyo like, share, comment intaba aad ku samaysaan. haddii aad nagu cusub tihiin waa inaad subscribe dhahdaan, haddii aad hore noo daawanaysiinna waa inaad aad iyo aad tala bixintiina commentiga noogu reebtaan insha Allah.